بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة مركو رئيسة وحا شرفنا دمانتنا إن ما تسكنمت حفلة كسابسان soo jeedinta buuga qalan jebinta difaacashadan waa tii 17aad dufcad maaha waa difaacashadii 17aad way macna waxa way waxa buug la soo difaacday 16 jeer oo hore tantii 17aad way markay yiraahdo dufcadda hadda ugu horeysa jaamacadda ugu badan waxa way lab ودفعة لبعتنات وهذا قل جبنته أنت إن شاء الله وبوك دفع عنيس وحكى لجرو لاب برنامج أو ما أنت وجوه رئيسة إني قل جبيان لابد أصنع حواي international relations and diplomacy إيوه economics أنت كله هراء لوجو بحي كواد لباس الدهاد ولا بحي لكن لابد أصنع مركز وجوه رئيسة كبحان وصعبية إن شاء الله صدق هذا إن شاء الله سيدا أو بروسيس كرشات كلو سمينا يسدو محمد وشاقي ومركي ugu horeysay xaflad qaabkan loo soo agaasimo oo intaas ardayda timaado sidana loo soo agaasimo markii ugu horeyso ustaad maxamed waa ku mahadsan yahay meesha ku sii wad insha Allah sidoo uu sheegay boroseska isaga sheegay la maray sanadkan haddii ilaahay ka raali noqdo waxaan ku soo kordhin doonaa intaan lagu dhihin soco mowduuc waa lagu ansixiyey marka hore marka mowduuc lagu dooro waa inaad mowduucaad aad fahamsan tahay hortaan ku soo jeedisaa markaad soo jeediso oo lagu yiraahdo mowduuca waxa aad ka hadli doonto aad fahamsan tahay ay lagu fasaxa kadibna waxaad soo jeedin doontaa proposalka kadibna maanta meesha loo fadhiyo boroseskaas aan marin doonaa qof aan mowduuciisa marka horeba aan fikradiis fahmin oo ka wada hadlin aan soo jeedinin ma loo ansixinayo insha Allah taas loo yeelay waxa way inaan isku ogaano jihada u socono adan jihada u socdaan ogaatid insha Allah sida loo sheegay waxa way haddii ilaahay ka raali noqdo xaflado kale oo saan oo kale ayaa waxay ka dhici doonaan marka la gaaro waqtigooda gobolada jaamacaddu ay ka shaqeyso dhammaantood insha Allah iyagana ilaahana gaarsiiyo okay waxaan idin soo jeedinayaa marka ugu horeysa qofku waxa jeedin doono meeshaan aad soo istaagayso please cabsanin adiga oo faraxsan oo waxa aad kugu jiro nugu shubto inta soo istaag ilaa waxa aad nugu shubto doonto aad taqaan ana ma naqaano waxa soo jeedisay wax lagu siin doona marka hadii adiga wax soo jeedinin oo aad soo istaagto halkaan waxa soo jeedinaysin aadan ka warhayn sidoo maxamed yar sheegay halo naxariisto naxariis ma jireys ogaadiya waxa way ma ku talgalna ku dadaashid waxa adiga aad soo qortay inaad si fiican u soo jeedisid oo dadka aad qancisid insha Allah taas mid waay tan kale qof kasto kamid ah banalka oo buug soo qoray waa inuu soo istaagaa buugiis wuxuu ku saabsan yahay wax ka sheega hal qof aan oo hadlaya ma jirto qof kasto oo kamid ah kooxda buuxda ma buuga qof kasto wax laga rabaa waxa buugiis ku saabsan yahay inuu wax ka sheego karo haddaan wax ka sheegi karin mis buug aad mu qoran noqonaysa ogtaad waa loo qoray ama hebel soo qoray noqonay marka qof kasta ku talagal waxa soo inaad hadhow aad kooxda kala qayb qaadato soo jeedinta insha Allah hal qof leeyahay tan kale su'aalaha oo bannerka hadhow fadhiyo idin weydiin doonaan hal qof kaliis ma ka jawaabay dhamaantii oo simantiin haddii inta kale too iska aamusan hal qof la ka jawaabo buug iska ma iska ma kaliis ma leh ولا ليه مركو أنا بوق له هذا قيب قطع جوابه بحنت أنا ولا بوق هو ذي ليه هنا أوكي تانكله
qof kastaba oo kooxda ka mid ah wuxuu wax ku heli doonaa wuxuu soo jeediyey su'aashii weydiis ugu jawaabay laba qof isku mid ah ma jiraan qof kastaba waxaa lagu qiimeynayaa soo jeedintiisa buug uu soo jeediyey buug ay soo qoreen wax badan la isu gegeynaa meeshaas hebelaa noo hadlay isagaa noo sheega keligeed maaha everybody waa soo istaaga waana hadla buugan waxbaa laga weydiina maana ku talagal hadda ku talagal insha allah jaamacadda haddii ilaahay ka karaal noqdo waxaa sanadkan la qaban doonaa conference oo research ku saabsan oo ka qaybgalaya dad jaamacadda ka tirsan oo maamulka ah oo haddaba inta fadhiyaan waxaa kale ka qaybgalaya macallimiinta jaamacadda wax ka dhigto qaarkood ayaa ka qayb geli doonaa iyo dad dibadda ah dhammaantood marka insha allah sanadkan waxaan rabnaa in aan bilowno waana diyaar sidaan oo kale aa lasu imaan doonaa kiina waa ka duwan yahay qofaa mawduuc doortay mawduucu soo qoraa waa soo jeedin doonaa waxbaaye cilmi baaris soo sameeyey oo dood dad uu soo bandhigi doono waaye waan lagu tartami doonaa jaamacaddan abaalmarin ay ku bixi doontaa insha allah marka insha allah waxaan idin rajaynayaa guul insha allah hal shay aan ku darsado marka hadda marka meesha buug ay dafaataan qalin jebintii oo xafladda idin dhammaan bes waxaad ka mid noqon doontaan bahda aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed inaad dhaqanka hadda aad tahay timaha saan loo xirtay iyo sarwaal jeexan iyo aad gagashanaysa waa ka haray ilaa yooyoodan baa kan waxa tahay aqoon-yahan oo Soomaaliyeed ba ku biirtay hab dhaqankaad bedel hatta adigoo arday ah oo jaamacad joogto waa in dhaqankaagu noqdaa dhaqan wanaagsan oo muujinaya qof jaamacad dhigta wax barta waxbarashada maxay tahay macnaheedu waxbarashada waxa waaye bedelid hab dhaqan la bedelayo waay aniga hadii la ibaro daarado sheekh daarado hadii ibaro sida loo weysaysanay saasa gacmaha dhaqaa wajiga dhaqaa saal sama ila uu dambeeyay ibaro aniga aan sameeyo aan wixii isaga ii sheeg aan sameeyo means hab dhaqankay waa bedelmi marka hore si loo weysaysto ma aqoonin hadda laakiin aynu ha si loo weysaysto waxbarashada marka waxa weeye inay wax bedeshaa haddii aad ku bedelin wili sidaad leedahay wax ma baranin dhaqanka ma bedelin wax ma baranin waxbarashada waxa lagu tahay qofka inuu waxbarashada uu hoos wixii ugu jiro inuu ka tarjunto la rabaa marka ka tarjunto waxa aad baratay diintaada dhaqankaada islaamnimadaada iyo soomaalinimadaada ma ka tarjunto waxa weeye dad badan jaamacad hadda arkay dad badan oo sarwaal jeexan wato iyo dad saa u xaasan waa dhaqankeena ma marka insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dhalinyarada ilaahay waafajiyo sida ugu wanaagsan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaah.